السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan barnaamijka maanta kasoo qayb galo. waa dad badan iga mudan oo hadalkaas lahaay ama hadalka iga horay weydiiyeen, laakiin waqtiga la fiirinayo xarageynaya markay hadalka qaatay laga raadno. tan ugu horeyso inta hadda shirka socday waxyaalaha mar walba ku falcelinaya oo xarageynaya dhaqaalaha. arrimaha dhaqaalaha xarageynaya howl walba wuxuu ku socotaa dhaqaale. haddii dhaqaale aysan jirin wax socon karo ma jiro. waxaan maqalnaa dad dhalinyaro nahay magaaladaas oo ognahay magaaladaas oo ku jirnaa dhammaanteena dadkeena aqoon-yahanada ay dadka kale dhammaan waxay u gaareen meel kasta in xisbi uu ka jiro. xisbiga dalka aad ay u bateen. xisbi walbana wuxuu leeyahay dad aqoon-yahano iyo dad socodsiyo leeyahay. marka inagana waxaan rajeynayaa insha allah xisbigeena inuu hor u socdo hor ugu socon lahayn dhaqaalahaasna xoog saaran kooda ka dhalinyaronimo ahaana wixii isla markaas oo qoonda ah iyo qorshaana oo xisbiga markaas soo dejiyo diyaarona insha allah. waxqabadka sidee lagu gaari karaa? waxqabadka lama taqooloona baa la tafacaloona lama rabo. bulshadeena waxay badan tahay la sii yimaado saan loo daldan qof walba qiirada hayso banaanka keeno la kala baxo fantashiro fil ardi dib aan la isku arkin way dhacdaa. marka waxqabadka baa la yimaado inaan wax dhahan oo haddana laga talaabsadayna dhici insha allah. lana dejiyo sharci adag oo dadka kala hagaayo gaar ahaan dadka jecel in xisbiga hore inuu u socdo. qaybtan magaceeda idin sheegin waa xumaad. magaceeda waa Abdi Macalin Beero naanisteedu muxuu la yidhaahdaa. waxaan jeclahay horumar walba oo dhalinyarta iyo maxaan ku yidhaahdaa iyo odayaasheena ay ku jiraan dhan walba inaan kaga jiro. laakiin marka qaarkood waxaa wax ku socodsiin karin oo hore u socon karin waxaa ku jira niyad-jab fara badan inuu ka jiro dhexdeena. horta hore dhexdeena calooshaas ku furno sida maamada haddaaya ka dhawaajinaysay iyo asxaabta kale ka horeysay. xisbiga daacadda ha loo noqdo ikhlaasa la yimaado. haddii ikhlaasa meeshan goolin wax hor u soconaya ma lahan. marka sidoo kale xisbiyada dalka iyo dastuurka sida uu qoraayo qof walba uu ogyahay. xisbigeena waan ku faraxsanahay in lagu arko dad jiyo kala duwan. xisbigan dad gaar ah ma lahan, dad shakhsi ah ma lahan. waa xisbi ka dhexeeya bulshada Soomaaliyeed. xisbigana marka shuruudihiisa iyo waajibaadkiisa dhow oo dadka wax uu la qaybsan doono ku tartama waxaa ka mid in shakhsiyaad kala duwan ama qabaa'il kala duwan beelo kala duwan xisbi lagu dhahaa. maasha allah waan ku faraxsanahay beelo kala duwan xisbi waa ku jiraan. laakiin dadkeena waxqabadka loo diyaariyay daan isku sheegay dadka kale إن شاء الله حسبينا إنه نخلص بسرعة وقاعدنا حسبي فرق بدن هذا وقت كثيره وحال سوسو أرم دونا قوية وقوة نقول بدنا عقب حسبي وصل بس مركب تاسع كفي عنا وملنا إن هالمال سوي ما هذا السبير صار هل حسبي سفي على سعسي وكبر ما دينا عيوا سوق قوينا يا حسبي ناس وقت كثيره سيد لو ترتمي كرو وحيي سنة يعني أهل سنة وحال وجاري كنا قال وحما قاتل كنا حسبي وضد سوقله ضد أحل سوق خبتي ووين كا وقال بقصبلي أما قال أروسلي كل حسبي وطان وأنا قال بدين ولا ترتمي كنا لكن أنا يوم كان قال بدين وكتب بدلنا ضد يوم مرة بهيوم ريسورس يوم ماني ريسورس أما أنا رحت مرتين في يوم كا والله حقيم بدن بني آدم كحقيم بدن ضد حتى هاي السنة حسبي وصعنا ضد حاله بروابيو كل ما أنا حاله بديو وأبنا فرصة ما هاي دخالة ما هاي لكن وقتنا أوهرنا دخالنا أوهرنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.